dhallinyaranimadu waa waqtiga ugu fiican ee nolosha ka mid ah. waa waqtiga uu qofka bini aadamkii dhiso adduunkiisa iyo aakhiradiisa. waa waqtiga kaliya aan cidila lahayn qofku markuu weynaado xidhiidhkiisa tiro bata, mujtamaca xidhiidhku la leeyahay ku tiro bata, marka waqtigiisa inta badan isagu ma laha, dad kale leh. laakiin qofka dhallinyarada ah waa qof isagu hanta waqtigiisa dhammaanteed, waana waqtiga ugu fiican ee uu qofka bini aadamkiisa dhisi kara adduunya aakhiradiisaba. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو آخرة أنك دليرة ذاك ورمي وحكت المامي دتكي عرش الرحمن كهرسنا يا مالنتا قيامه دتكو كديدين هي وكنت نكون السندود لتاغين هي وخلقي قال حسابنا يو وقف وليبا وحو جيستي مالنتو قان غاري الى iyo maalintu ka dhimanayo wuxuu sameeyay wuxuu dhageystay il iyo dhag iyo qalbi iyo meel waliba waxay sameysay la xisaabinayo. waa xisaab aad u adag qofka bini aadamka haysana. maalinta kadeedkaasi jiro nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay 7 qof oo kadeedka iyagu aan ku jirin ilaahay carshigiisa harsanaya oo xagga Allah subhanahu wa ta'ala laga maamusay. 7 waxaa ka mid ah shaabun nashaa fi cibaadati Allah, nin dhalinyaro ah oo ku barbaaro ku kobcay ilaahay subhanahu wa ta'ala cibaadadiisa.